حنبلي أنو نلاقي هاي وأنا أود علينا إلهي سبحانه وتعالى أنا هكذا قرب أنت أصلا مسوق بجمالية والسلام عليكم حالي أو كم إذا قضيات الجالية الصومالية دلك فرنسيسكا وحان هلمام كجرنا ومرنا أهل هلمام كرين قبلها رير باريس سيدا قاياها يقيمة على حفلتنا وحوي وقف قاتل هنا قرب قلين أين لمبركو كعين إن حفلتنا سيدا أقرأ بدن ما أنت إنتان أو صومالية حاو أو كفر أحسن مدحن الدل كوضا أو حلق كل وريقي إني هلتا للسوي مالا هذا يوم ما سيئي قبلها وحوي البرنامج كان قرأ قبل النص وقبل قابيه ووحان لسوكو بكرين وحوي صومالي وحان نقن قول إنهاي qofkeena hal doorka ama qofkeena waxa weeyaan dhaqdhaqaaqa miirana uma mahadcelino waxaan leenahay waa mahadsantiin aad iyo aad u mahadsantiin barnaamijkan quruxda badan ee caawa aad gacanta libaaxa ka qaadateen intaanoo Soomaaliya oo waxa weeye Soomaalinimo ku faanayso oo Soomaalinimo ku doodayso oo Soomaalinimo ku socoto oo Soomaalinimo isku garabsanayso waxa weeye waa cizi iyo sharaf iyo dalkeena oo hagaago waxaan Soomaaliya u rajaynayaa midnimo waxaan u rajaynayaa Soomaaliya dawladnimo waxaan Soomaaliya u rajaynayaa qarannimo waarta waxaan Soomaaliya u rajaynayaa sida ay u midoobeen Xasan Sheekh Shariif iyo Farmaajo inay u midoobaan waxaan haddana mikrofoonka ku soo dhaweynayaa Axmed Maxamed Cilmi Danjiye mid ka mid ah dhalinyarada degan magaalada Paris kana mid ah haldoorka Paris gabdhaha iyo ragaba waana muslimiinta wallahi maartay afar walaaran suuqyada marka labaad waxa weeyaan aan caawa u joognaa waxa weeye inaynu taageerno madaxweynaheena Farmaajo oo maartay dadkeenii Soomaaliyeed ee wadankii maartay farxadda iyo raynta maartay soo dhaweeyay inaguna inaan kala qayb qaadano maadaama aynu ku taageerno waxa quleen maanta ku taariikhna waxa weeye farxadda maanta isku aragnay marka waxa weeyaan walaalayaal saddex madaxweyne wada u jeediyeen waxa weeyaan wax farxad leh maartay si wanaagsan ay isku dhiibeen magaranaysa marka walaalayaal anaguna maartay kullu waxaan nooga baahan yahay inaynu dadaalno oo aynu maartay wadankeennii iyo wadankeena ku noolnahayba aynu wax ka qabsano maanta waxa weeyaan kullu hadal ima banaano aan maartay ku hadlo oo fara badan waxaan ku soo farxada oo maalaha maartay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh khudbadan qiimaha iyo qaayaha leh oo meeshan ka jeediyay waxaan u maleeyaa waxa weeyaan dhalinyaradu aad waxay u xiiseeyaan in barnaamijka fanka uu qabsoomo barnaamijka fanka waa nagu soo socdaa yaana la daahsan fanaaniintu waa noo joogaan caawa ilaa 4 subaxnimo ilaa 5 waa wada joogaynaa si qurux badan baa u wada joogaynaa waan baashaalaynaa waan damaashaadaynaa waxa weeye caawo waa without stress waxaana soo dhaweynaynaa madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Xasan Cali Khayre waxaana ka rajaynayaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya sida geesinimada leh oo wadanimada ay ku jirtay ee u doorteen shakhsiga ay shacabku rabeen inay codka kalsoonida u siiyaan ra'iisul wasaaraha cusub oo madaxweynuhu soo doortay waxaana u rajaynaynaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu inay noqdaan kuwo wada shaqeeya kuwo aysan dhicin sidii xukuumadihii ka horreeyay ee dhici jirtay kuwo aana mooshin laga dalbin kuwo noqdo hormuud ay ku dayaan madaxda Britole waxaan haatan mikrofoonka ku soo dhaweynayaa mid ka mid ah haweenka Soomaaliyeed oo aan runtii oran karo waxay lafdhaxaad u ahayd in xafladan caawa sida tan u quruxda badan uguna qiimaha badan laguna soo dhaweynayo madaxda Soomaaliyeed inay ka qayb qaadato waana gudoomiyaha haweenka jaariyada Soomaaliyeed ee dalka Faransiiska Xaawo Cabdi Guure falyatafadal Xaawo garabka haweenka ee jaariyada Soomaaliyeed bismillahir rahmaanir rahiim waxaan jeclahay inaan taageerayaal tiro badan leeyahay waa ku faraxsanahay nimanka inaan ka taageero badnahay aan u jeedaa laakiin haddaan kursi soo doonto saas ma helayo because raggaa i diidaya waa mahadsantihiin bismillahi rahmaani rahiim waxaan u soo istaagay kaliya waa dhowr kalmadood oo ku aadan munaasabadda ma ahan inaan khudbo badan hayo
wixii aan dhihi lahaaba cali iyo wiilashii iga horreeya tay marka kollayda waxay la tahay haddii qofka loo yeero waa inuu hadlaa waxaan rabaa inaan anugu halkan ka sheego horta waxaan usoo istaaga waa mahadcelin keliya waxaan u mahadcelinayaa tiimkii horta ila soo shaqeeyay oo xafladan aysan la-aanteed qabsoomteen oo guddigii qabanqaabadooda aan guddoomiyaha ahaa gabdhihii ila shaqaynayay iyo wiilashii